dadweynaha ku nool degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoodle ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay dayactirka wadada weyn ee isku xidha degmada Qorlugud iyo degmada Wadaamago. Wadadani hore loo dhagax dhigay dhismaheeda ayaan fulin, waxaana haweenweynaha degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoodle ay ka gilgisheen dhibaatada ay wadadani ku hayso gaadiidka u kala goosha degmada Qorlugud iyo degmada Wadaamago, iyo waliba dhibaatada ay ku hayso haweenka. haweenkan ayaa waxa hogaaminayay gudoomiyaha ururka Now ee degmadaasi Qorlugud Basra Dirar Ali, waxaana intii hawlgalkan dayactirka ay socday saxaafadda la hadlay gudoomiyaha ururka Now ee degmada Qorlugud Basra Dirar Ali, gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye Caashabaar iyo Sabaad Ibraahim Warsame, waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland qurbajoogta ka soo jeeda deegaamadaasi sida ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha wadadani oo in muddo xanibnay. waxaanu kala sheegaynaa halka waxaanu u taaganahay haddaan haweenta dumarka nahay ee reer Qorlugud inaanu wadadii dhagax dhigno oo wixii tamarada u qabanno oo u sameeyno. waxaanu halkan u taaganahay inaanu anagu lacagta iska ururno, xoolaha iska ururno, xoolihii oo naga jilicsan. marka waxaanu u sheegaynaa dawladda barakaysan anigu midna tilmaami maayo ee madaxweynuhu u yahay Axmed Maxamed Siilaayo inuu noo soo gurmado oo wadooyinka naga qayb geliyo. ma geydo weeyaan sida taniye waanu geynaa inuu nala sameeyo oo nala shaqeeyo oo wadooyinka noo dhagax dhigo. kuwii dhagax dhigay baanu ka mid nahay inuu noo gurmado oo noo sameeyo oo noo keeno cagafyada oo noo keeno rugleyda oo noo keeno ciidanka oo noo keeno iskaragooyinka waanu kiraysanay kiray noogu soconayaan. waa anagaa dhagaxii dhigayna 120 loo dhagaxaan nimanka dhignay, inta dambena waa dhigaynaa. waxaanu doonaynaa in laga soo gaaro dabad iyo gudubay laga soo gaaro qurba joogta anaga dabada naga jirto Qorlugud danaysa inay wax nala qabato. halkan waxaanu halkan ku haynaa inaanu haddaanu nahay bahweynta Qorlugud haweenka waxaanu gacan ku haynaa oo gacan saaray wadadii isku xidhaysay Wadaamago iyo Qorlugud. halka gaarigii noo mari waayay ee dhaawicii noo mari waayay ee umushii noo mari wayday in loogu soo gurmado oo nalaga caawiyo oo nalaga taakuleeyo dawladda xukuumadda iyo Axmed Maxamed Siilaayo wadadii looga gurmaday ee kursiga Ilaahay ku siiyay ee uu gacan ka helay sidii aad ogaad kala qubantay imikana kaga tagin sida inta ka bacdi waxaanu leenahay haddaanu nahay degmada Qorlugud waxaanu nahay degmo xidhan, degmo aan cid danaynin hadalkeeda nalama daneeyo, hadalkeeda lama daneeyo. Maxamed Axmed Siilaayo waxaanu ka codsanaynaa wadadana waa tii lagaaga codeeyay, waa tii aad ogad wixii kaaga dhacay, waa taad ogad codkaad ku soo baxday inaad ka heshay, waa taad guusha ka filatay. wadadii ha ilaawin, ha kaga dagin adigoon wadadii meel dhigin. waxaanu leenahay kuwa iminka doorashada filanaya ee iminka doorashada doonaya hadduu yahay Muuse Biixi iyo hadduu yahay kuwa kalaba waxaanu leenahay wadada ninkii maanta wax ku darsada ee wax gashada ayuunba cod kale. ninka maanta wadada wax gashada cod kale, nin kale naguma leh. ninkii maanta noo soo gurmada wadada qalabkeeda iyo maxaan ku sheegay waxtarkeeda na siiya waxaanu u ballan qaadaynaa inaanu maanta codkiisa siino. waxaan leeyahay qurba joogta deegaanka Qorlugud u dhalatay meel kasta oo degmo oo Qorlugud oo kala ah waxa laga sameeyay wadadeedii waa la sameeyay, rag baa u kacay, dhalin baa u kacday. inaad idinna noo timaadaan idinkoo hantigiinii sita walaalayaalo dhulkeena ameesane dhisay akula dhisay awala dhisay dhulka dhisa Salabaan Elmi Saciid Salabaan Kiiko wararka fogaan araga xorta Star TV degmada Qorlugud.